madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo gaadhay magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo bulshada reer Burco si diiran u soo dhaweysay ayaa waxa laga hortagay degmada Qoyta iyo tuulooyinka ka shisheeya waxaana soo dhaweyn kadib safarkan oo horkacaya madaxweynaha Soomaaliland soo gaadheen barxadda hore ee madaxtooyada Burco halkaas oo ay ugu horeyntii bulshada kula hadleen mas'uuliyiinta heer degmo mid gobol iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin mar iyo laba iyo saddex dadweynaha reer Burco waan idinka mahad celinayna wafdiga madaxweynuhu hogaaminayo waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolkii Togdheer gobolka ragga Soomaaliland waxaanu dheernahay wax ilaahayna dheeraysiiyay baanu dheerna soocaynka madaxweyne halkan maanta aad joogtaa waa Burco waa gobolkii Togdheer waa halka madaxweynuhu ka tisqaado markii hore waa ku dooranay maantana waxaanu leenahay taageerada iyo kalsoonida ay kugu qabaan ummadii ku dooratay iyo kuwii aan ku dooran labaduba taageerada ay ku hayaan baa maanta halkan ka muuqatay ku soo dhawow gurigaagii warnamiibiyu keenabeena asur raacdayaana nadartu waxaan soo arkay yaa nacam idhaahdaa madaxweyne Burco waa taa haddii lagaaga sheekaynayey haddii lagu lahaa Burco ku soo dhaweyn mayso haddii lagu lahaa Burco way ku siidi doontaa ilaa iyo karashanka ilaa halkaa dad meel aad ka marto waadigii waayey runtii maanta halkan inaan hadal badan ka idhaahdo ma soo istaagin kaliya kelmadaha ka oranaya oo mahadnaq marka koobaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta safar inoogu yimi safarkaas oo ugu kuurgalayo xaaladda nololeed xaaladda guud ee dhabta ah ee ka jirta gobolka Togdheer iyadoo hawsha qaranku ay badan tahay madaxweyne waan kaaga mahadnaqaynaa safarkaaga aad noogu timi aniga laftayda in faan igu filan way ii tahay anigoo reer Burco ah oo dooxa marka laga tallaabo basta jaamaca guryaha labanka ee ku jira ku dhashay in magaaladeedii maanta madaxweynaheedii oo ay hormuud ka ahayd dadkii doortay inay maantana sidan u soo dhawayso aad iyo aad baan si gaara idinku mahadnaqaya bacad baynu joognaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ama salaan sharaftay bixiyeen ha noqoto ama sidii ay waheeganka ugu ahaayeen sugidda amniga iyo nidaaminta xafladan iyo meelihii kale la marayayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sidoo kale waxaa halkaasi khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyey madaxweyne Muuse Biixi marka la leeyahay madaxweynuhu hebel ma aha xisbi gaara ma aha waxa uu saastaantii qarankiina soo dhaweeysan dhamaantiin oo ku maadsantihiin waan heegeystay halkan inaga horeeyay wuxuu ka yiri dad baan ahaan Burco way ku mudaharaadaysaa horta walaalayaal mudaharaadku hadduu salmi yahay oo aanu khasaare lagu dhalanayn ra'yigaaga ra'yi ka duwan inuu qofku cabiro ama uu kiraado waan ka ra'yi duwanahay waa taynu ku dhismayno oo waa talawadaagga ilaahay baa dadka fikirkooda kala duway laakiin mudaharaadka mucaaradka hadduu ina khasaarinayo oo dhibaato inoo keenayo kaasi waa xaaraan bariyahan waxaynu maqlaynaa dabayl ka socota geeska Afrika oo la yidhi Afrika waa la isku daray geeska Afrika oo ka dhalatay Soomaaliland wixii nabada way soo dhaweynaysaa wixii iskaashanayna way soo dhaweynaysaa in la ixtiraamana way soo dhaweynaysaa maanta dabaysha ka socotay la yidhi nabadaynta geeska Afrika iyo waa laga midoobayaa dawladaha qaarkood ku dhawaaqeen waxa uu hormooda madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki intii uu noolaa ilaa maalintu isagoo injineer bilaabay sanadka horeeya uu ka tagay ilaa maanta wuxuu ku jiray dagaal uu gobonimada ugu doonayay Eritrea 32 sano dagaal buu ku jiray markii dagaalku uu yimid Ethiopia oo xorriyad cod ka qaaday xorriyad buu ku qaatay haddana Ethiopia isdileen oo dad isku qabsadeen dad badan oo malaayiin gaar ah ku dhawaada ku dhintay haddana 12 sano kale ayuu go'doon ahaa oo u adkaystay cadaad kasta oo la saaray inuu hoggaansamo gudidii jibcada quruba ka dhaxaysay shirkii Algeria
inuu aqbalo isagoo loo diiday 4 mitir oo dalkiisa oo baadina tuulada axadka u jirtay laga qaado oo cid kale la siiyo ayuu toolba maray tiisi bay noqotay caalamkoo dhan ba halkiisa ugu yimid prime minister Ethiopia ay ugu tagay adigu asmara oo dhulka ku muranteena si isagana tirada ka qaado wuxuu muujiyay inuu muraadkii dalkiisu lahaa halgan uga hari waayay ilaa cidii ku haysatay ku xukuntay Soomaaliland dalka way ka sii adag tahay inamada xamare shalay jibcada quruma ka dhaxaysa Security Council-ka kan soo hadal qaadiyay Soomaaliya ee lahaa wayda la qabtaa waa go'doore waxaanu u sheegaynaa farwalqayntu maray ka dheer baan u maraynaa ballanna waxaanu idinku qaadnay idinkoo yimaadaana wax xurmiyada oo ogolaata mooyaane inayna wada hadal badan Soomaaliland wadada tuka adag bay haysaa ma suurtoobayso Soomaali baa la isu keenayaa waana ku tirnaya ku arkaayo ma aha Soomaaliland mid indhaha laga qarin karo xuduudkii Ingiriiska iyo Afrika oo ka tagay Ingiriis oo ku dhisay baan ku taaganahay waxaanu dooraynaa inaynu wada hadal iyo nabad ku kala baxno inamada maanta xamalka taliya xukuumadda ka tagay way la noqon weyday waa dhageysateen 4 cisho ka hor wuxuu kaga hadlay Security Council-ka ninka u fadhiya farmaajo Security Council-ku waligeed ma dhici wax saa wada hadlaa mani hinda doo taliyo oo nin kale wuxuu matalayo waana ogeyn malaha wixii dalka ka dhacay ma tiraahdeen haddaad u tahay kuwaan ku diyaaradu leysay iyo kuwa aqaladu ku dubeen ma ogid kuwii buraha lagu laayay iyagoo waxba garabsadin ma ogid umurihii la dooxay ma ogid dhalinyaradii boqolka la isugu xilay qaar iyagoo nool gooda ku gubay inta hudagud inanka Security-ga maanta soo ka hadlay ee yiri waxaan matalayaa farmaajo Soomaaliya larka uu kiciyay iyo xumaanta uu abuuray tubaryaha cid ka bogsan karaysa maaha waxaanu sidoo kale uu ka hadlay madaxweynuhu doorashada Soomaaliland dhibaatooyinka inoo hortaagan waxa kamid ah waxay nagu dhacay kala qoqob dadkii laba waliba meel xaafadeen bay isku goosatay ayay isku sheekaysaa waxay u qabtaa cidda ku xigtaa reerka ku dhagaan uu celiyahay wari isuba hayaan isuba gudubno haddaynu war isu helahay walaalay wax naga dhaxay ma annaga dadka dhex marna maanta in badan baa waxa laga hadlaa xisbiga wadani iyo kulmiye waxa leeyahay madaxda labada qolo waxa daan dhahay anoo afka Cabdiraxmaan iyo guddiisa ku hadlaaya dhamaantay waxaanu dooraynaa inuu dalku nabad noqdo oo horumaro waxay ugu calaamayaa xisbiyada kale waanu ka tala fiican lahayn wad qadatay intaas toosi oo walaalnimo ah ma jirto colaad dhalinyarada isugu qaaday xisbiyada gudahooda Xasan Xamdulle Goobjoog TV Burco